waxaan la soconaa in dhulkii ay ahayd in dawladdu gacanta ku hayso imika dad shacab gacanta ugu jiro taasoo qaaliga qayb ka noqonayso sababta su'aasha ku weydiinaya waxa weeye qofkiiba guri dhisanaya lacagtiba ku filan waayaysa haddana gurigiiba dilaac sameynaya haddana guri problem kale u keenaya haddana waxa laga yaabaa quality wixii aad shirkadii ku heshiiseen oo kale wax ka tayo jaban in lagu geliyo haddana murankii waa badanaya marka bal waxaan doonayaa dadka ku daawanaya kuwa doonaya inay guriga dhistaan iyo kuwa guriga imku soconayo iyo kuwa guriga dhistayba ee caqabadahan la kulmay maxaa loo baahan yahay oo steps baa la doonayaa eeg tusaalahan talaabada inuu qaado maxay tahay talaabooyinka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay markuu qofku guri dhisanayo inuu sameeyo si uu uga badbaado lacag fara badan oo qofkaasi lagu soo dalaco at same time-na gurigiisina uu guri badqab noqdo tayo wanaagsan oo dhismuhu inuu consultant yeesho waa mid waajib ah aan marnaba la dhaafi karin consultant-kaasi wax yaro fudud uu qaadan karaa waana la heli karaa dhalinyaro badan oo waxbaratay oo aqoon fiican ka haysata dhismihii consultant-ka markuu u tago waa in la jaangooyaa horta dreamka qofkaasi wuxuu doonayo gurigu doonayo sidoo wuxuu doonayo qolaalkiisu nooc ay doonayaan yacni qofka niyadiisa waxa ku jira waa in marka loo diyaariyo marka fulintoodii la kala dhisaynkii nashqada uu qofku doonayo waa in cid la jaangoysa uu helaa waa marka labaad guriga qiimihiisa lafaha guriga ku baxaya yaan koskii ahayn faa'iidada ahaa waa inuu jaangooya consultant-ku u jaangooya yiraahdaa gurigaaga waxaas ku baxaya uu ogaada qofkii intaanu shirkadda tagin gurigiisa lafihiisa waxa uu ku dhismaayo ta saddexaad materialka guriga galaya ashyaada guriga galaysa waa in uu xadidaa one by one waa inuu xadidaa qofka consultant-ka uu tagay wax walba guriga galaya tusaale ahaan sibirka siliiga marmarka wax kasta oo guriga galaya waa inuu u kala qaadaa shay u kala qaadaa oo waliba shayadaas oo la dabaqinayo sharci ahaan oo la qorayo oo marka afraade waa in uu sameeyaa faa'iido ahaan waxa qiimo macquula oo yacni stable oo fadhiya oo shirkadu ay ku qaadan karto maxay toolay guriga heshiiskii oo dhameystiran markuu diyaariyo haday tahay qiimeyntii dhisaynkii guriga iyo nidaamkii uu noqon lahaa wax kasta oo guriga galayay oo lagu la xisaabtamayo shirkadda lagu la xisaabtamayo waa inuu isagu diyaariyaa tusaalahan qofkii consultant-ka marka guriga aad consultant-kii guriga kala taliyo shirkaddii guriga u dhiibto maxay noqonaysaa isaga doorkiisu waxay noqonaysaa shirkadii waad u tagaysaa adigoo faylkaaga oo dhameystiran sidaad u tagaysaa inta badan mushkiladaha dhaca waxa weeye qofku shirkadii uu tagay isagoo wax xalaal ah u diyaarsan jirin guri baan doonayaa buu oranaya in la dhiso cabirka dhulkiisa uu sheegaya nashqadii isugu doonayay nashqadaan ahayn baa loo diyaarinayaa ama guri hore ay u dhistay shirkadu ayaa la oranaya kaasoo kale aan ku dhisaynaa qiimeyn uu gurigiisan og yahay wax ku baxaya ma jirto shirkadda iyada jaangoosanaysa oo qiimihii iyada sheeganaysa ma gorgortan ma geli karo sababtu tahay ma ogayso wax gurigiisa ku baxaya oo qiimeyn hore muu sameeynin waa saddexaad materialkii kama warhayo qalabkii agabkii guriga lagu dhisayay qofkii doorasho u malaw ma garanayo cidna kale ma soo talin marka shirkadii waxay ku qasbanaanaysaa inay iyada qiimihii jaangoosato nashqadii u samayso materialkii guriga galayna iyadu cala kayfiyatak waxa la waxay doontaa ay geliso okay halka adigoo socday imka tusaalahan markuu qofkii consultant uu marka xiriir la sameeyo consultant-kii nashqadii soo sameeyo consultant-kii intee leeg buu qofkii la sii soconaya consultant-ka marka uu formka u diyaariyo qofka dhameystiran shirkadii marka loola tago hatta wuxuu diyaarinayaa consultant-ku waa inuu diyaariyaa stageska marxaladaha gurigu kolba halku marayo iyo qiimeynta lacageed oo lacagtii face by face loo bixiyo shaakilaadka badan ee jira ee wadanka ka dhaca waxa kamid ah qofka lacagtii oo dhameystiran buu wada shubaya hadii hadhow isqabsi yimaado meeshii heshiisma yaal waxa la wax doorasho ah oo qofkani la yimi ma jirto wax diyaarsan ma jirto mar walba waxa dhacaysa in qofkii isagoo xaq lahaa xaqiisa la duudsiyo oo shirkadii marka consultant hadii aad samaysato tusaalahan lacagii face baa loo bixinayaa mar lama shubayo face baa loo bixinayaa lacagtii shirkadda face baa loo bixinayaa waliba waxa lagu jaangoynaya stage-ka gurigu marayo tusaalahan gurigu markuu kaco 2 mitir markuu gurigu kaco waa inuu consultant ku hayaa qiimaha 2 mitir ee gurigu kacay
wuxuu noqonayo waa in marka la isku jaangooya lacagta fayska hore iyo guriga waxqabadkiisa la isku jaangooya. taasi waxay faa'iido keenaysaa haddii la isku hor yimaado oo waxyaabihii quality-gii halkan iyo heshiiskii la galay shirkadii ay ka baxdo in si fudud shirkadii la yiraahdo fayska lacagtiisa waa naga haysay waanu ka joojinaa shaqadii marka la wareego faylkii uu laga qaato oo marka shirkad kale lagu wareejiyo. laakiin qofka haddii lacagtii uu guriga dhammaystiran hayo cidina lacag isu soo celin mayso sharci nidaamna aad martayna ma jiro. marka consultanku wuxuu daawo ka yahay isqabsi kasta iyo quality-ga guriga oo xumaada iyo dareemkaagii iyo niyadaadii wixii ku jira aad doonaysay oo uu ku suurtageliyo oo kaaga warhayo.